Okay, asalaamu calaykum guys soo dhawaada. Episode-kani afraad oo malaynaya inuu wax badan aan la soo dahay. Mideeda kalena episode-yada qaabka u soo dhigi doona waxay tahay yacni labadii maalinba inaan mid soo dhigno ma fahante. Ani daily wax uma soo dhigi kari sababtoo yacni waa shaqeeyaa 12 hour shift yaa ka shaqeeyaa yacni 12 saacad qof shaqo jiro maxaa la dhahaa waqtiga dambe imaanayo habeenkii xogaa way cuslaanaysaano inaa video daily ah u soo dhigo. Marka labadii maalinba hal xaba aan soo dhigi doona insha Allah. Idinkana ii dulqaadatiin aan rajeynaa. Waxaa waaye episode-kan afraad waaye. Horta waxaan ku bilaabnay horta in xogaa heshiisyadii iyo wixii noo dhibnaa oo kale aan xogaa iska buufsiino. Sababtoo playerada mostly markaa fiirino heshiis micnaha u baahnaayeen. Hadda Cabdullaahi Cabdiqaadir oo kale Cabdallah ninkii ahaa OC waxaan ahnay heshiis 3 sano oo ku darnay ma fahane. 9 bilood oo dhimnay 3 sano oo ku darnay. Lacagta caadiga ah sii lahayn 5,500 uu qaataa weekly wage 5,500 toos ah u siinay. Ani waxaa islahaaba ama uu kaa diidaayo yacni uu qaadan waaya islahaaba. Laakiin sida caadiyan wuu qaatay oo tartiib lacagtiisa wuxuu dhahayay intaas iga badan ma fahante. Marka episode-kan horta ilaa iyo December aan gaarsiin rabnaa ma fahante. Ilaa December aan gaarsiinaynaa oo waxaan rabnaa December xogaa inaan ka ag dhowaano. Si horyaalka iyagu noogu dhammeedo. Weekend dhexdiisa waxaa rabaa insha Allah adiga Khamiis in horyaalka qaybta koowaad ama episode koowaad aan soo dhammayno. Waxaan u baxnay kulanka koowaad Reading u baxnay hal iyo eber nagu garaacday. Mansfield Town sidoo kale u baxnay 2-2 la galnay oo Breja la galnay. Sida waxaa la koobkii kalena waxaa u baxnay kooxdan 2-1 ugu badinay. Kulanka kale noogu xigay marka waxaa waa Huddersfield Town horyaalka u baxayna waxaan ku soo dhaweynaynaa gurigeena KM Park. Kulankan horta Huddersfield Town waa hadda ka hor waxaa u baxnay Carabao Cup u baxnay waa ka badinaysa isku ogna Carabao Cup u baxnay waa ka badinay ma fahantay. Haddana waxaa u baxaynaa horyaalka macnaha isla dheereenaayo waxaan hadda awood ahaan u haynahay inaan ka badin karno kaalin saddexaad aan fadhinaa kaalinta sideedaad ee fadhiyaan ma fahantay. Kaalin sideedaad fadhinaa kaalin saddexaad hadda aniga Janis waxaa haysanaa kaalinta labaad inaan ku soo bixi karno. Ninkii Axmed ahaana ama Yaata ahaana waxaa waaye 6 assist uu leeyahay. meeshii laga rabo gool inuu dhaliyo assistiga ugu badan yahay. Marka waxaan rabnaa in oo micnaha kaalinta saddexaad adiga labaad xitaa horyaalka daa qaadi karna xitaa inaan intaas ceshano sababtoo haddii intaas aan ka baxno waxaa la sameeyaa yacni labada koox ugu horeeya toos u soo baxdaa kooxda kaalinta saddexaad ku soo baxaysa waxaa lagu go'aamiyaa waxa loo yaqaano playoffs lagu go'aamiyaa ma fahantay. Playoff lagu go'aamiyaa oo waxaa la sameynaano in yacni kooxda saddexaad saddexaad afaraad shanaad iyo lixaad kaalmahaas kooxihii soo gala inay laba iskugu dhacaan yacni afaraad iyo saddexaad inay isku dhacaan shanaad iyo lixaadna ay isku dhacaan labadooda qofkii ka soo baxa knockout final yacni Wembley ay ku dheelaan ma fahantay playoff ay ku dheelaan. Ani playoff inaan soo mara ma rabi waxaa rabaa at least koobka inaa qaado haddaa koobka qaadi waayana in maxaa la dhahaa yacni kaalinta labaad aan ku soo baxo. Hadda waxaa ordayna xataa championship ina amaano championship marka amaano ka bacdi Premier League aad tagno saas rabnaa marka in aan sameeyno. Hal gool la dhalinay waxa waaye daqiiqadii 27aadna waxaa weerar maxaa la nagu soo qaaday kooxda Huddersfield weerar nagu soo qaaday James markaas naga celiyo oo tackle fiican ku qabtay. Markaana waxay soo saarayaan free kick ay soo saarayaan waa kana waa laga celiyo kubadda markaana waa kana Yaata wuxuu u soo dhigay Holmes waa kana Gabriel Holmes waxaa u malaysaa markuu kooxda soo galay inuu si fiican ula qabsaday. waa kana Holmes kubaddaas laakiin inna lillahi banaanku mariso subxaanaka yaa cadiim. Holmes maxaa kaa qaldan bismillah cabtoy ma tahniyo kubadda banaanka mariyo maxay tahay Holmes what kubad faaruq u dhalin karo banaanka mariyo wallahi markana waa kana ay Kroma banaanku mariyo. waa Huddersfield Town kooxaha ugu adaga ka mid ah horyaalka dheli jira waxaa xasuustaa 2018 kooxda waxaa xasuustaa Premier League markay imaatay waxaa ku faraxsanaaba in waxaa la dhahaa Premier League imaato ku faraxsanaaba sababtoo waxaa sameysaa FIFA waxay sameysaa koox walba oo maxaa la dhahaa championship ka soo baxdo Premier League imaato waxaa la sameey jirino in yacni garoonkeeda lagu soo garo micnaha gameka lagu soo daro. Ana marka farxad waxay ii ahayd gamekaas garoonka lagu soo daraya farxad ii ahayd kooxda ma shaqo ma ku leeyahay baani taas oo faraxsanaa jiray ma fahantay. waagaasna waxaan u maleynayaa garoomada ah haysan jirnay FIFA 18 garoomada waa yarayd garoomada iska yar ahaayeen. gool hadda naga soo bareejiyeen qoladii hala Kroma naga soo bareejiyay hal gool uu ku soo dhex faktay waxa waaye oo ka soo gaari waayay heerka uu ka soo gaari waayay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta la marahayaaba insaan ku dhamaanaysa bareejadan ay la tahay. saas markay ciyaartan ku soo dhamaatay
marka waxaan rabnaa marka in yacni aan kulamada kale oo ku xigo marka xoogaa aan buufsiino ma fahamtay kulamada kale oo ku xiga waxaan rabnaa xoogaa inaan buufsiino sababtoo waxaa waaye ilaa December oo kale inaan dhaqso ka gaarno January aan gaarno hadda Crowley Town oo kale Breja la galnay waxaa waaye kulan kale oo ku xiga Leyton Orient oo baxnay 2-1 ku garaacnay ma fahamtay kulamada kale marka inaan saan kale u buufsiinaa rabnaa Exeter City away ahayn 3-1 nagu garaacday waxaan noogu xigay marka kulankan Carabao Cup noogu xigay kulankan noogu xigay waa Carabao Cup waxaan u baxaynaa Tottenham oo baxaynaa Tottenham horta kooxa ugu weyn Premier League ka mid tahay waa Big Six ma fahamtay in macnaha Kane Park aan ku soo dhaweyno ka bacdi aan dhibac ka raadsano ama Carabao Cup aan hore u soo dhaqaaqno waxa waa sharaf weyn inoo tahay meesha hadda ugu talagalnay Carabao Cup waa joognaa Carabao Cup waxaan rabaa inaan imaado yacni at least wareega 8 inaan imaado hadda quarter final la joogaa ma fahamtay quarter final la joogaa saasa raba marka inaan hadda ku soo socdo ninkaan hadda playerka hadda ugu sheedan waa James Maddison 27 jir England u dheelo waa player world class ma fahamtay ninka ka hor imaanayno waa player world class Bentancur u jeeda Kulusevski u jeeda dad badan u jeeda Son joogo fahamtay aniga ragana wadanaano oo maxaa la dhahaa intooda ugu badan professional maaha maanta oo macnaha meelo waaweyn ka soo dheela ma aha wax playerada noo joogo dhan kulligooda wax professional ma kulligooda sama professional ma fahamtay kulligooda waxa horyaalada yaryarka ka dheeli jireen wax horyaal weyn ka dheeli wali ma balahanba laakiin waxaan rabnaa in maxaa la dhahaa xogaa tacticada ku dilno oo tactica fiican aan la dheelin ma fahamtay a'uudu billahi herkasay waxa wadaahe Son shaaftada Son u waday macala playerka asi teamka ku teammatekiisa wixii dhan isku daray what the hell isfiir meesha shaaftadiisa playerka la jiray Son wax dhan caadi isku qaadan fahamtay markana waa kana deeq kubadda wala soo dhax qaatay deeq waa laga badbaadiyay kubaddaas laakiin corner soo saarayna markana waa kana German let's go man madaxii ugu horeeyay aadaliye madaxa ugu horeeyay aadaliye fahamtay waxaan noo dhaliyay markaasna German waa horta waa dheer yahay waxa waa nin cirkaas la eg waa kubadda soo boodaaday daafacayd dhanna laga kulboodo Bentancur iyo Son laga kulboodo ala dhahay dhirma meesha ku haysi madaxa wash lagu sii let's go Tottenham hada hal gool ku leena waa wax aan xalla inaba caadi ahayn waxaan rabnaa anta maxalla Postecoglou in maxaa lahaa tacticdiisa aan meel iska saarno herka kubad fiican oo soo celiyo markaas waxa kana sidoo kale deeq asna xawaay kubad oh my days deeq waa cagta duu dhalilahay koox badan soo dalbalaayeen ba hadaba soo maxaa la dhaw kulamo badan dheelina Sassuolo 6 milyan ku soo dalbada xasuustiin marka hadii cagtaas uu dhalilahay wallahi waxa badan soo dalbalaayeen markana waa kana Cabdiwali waxaa ku nacay kubadaha qaar oo maxaa la dhahaa yani uu cunaayo waa kubada aan madaxa gelinin wallahi kubada aan madaxa gelinin cunaa wallahi markana waa kana deeq let's go my boy let's go ninka noogu badan awood ahaan waa kana ma fahamtay asaan noogu badan kulamada weyn ninka ku faka karnaa asi waxa waaye aaminsanaa ninkan hadii kooxo weyn oo maxaa la championship ka daad imaano in kooxo Premier League ay soo dalban doonaan ma fahamtay laakiin ani waxa ay daran inuu asidaho kooxdaas rabaa oo sheekada maxaa la dhahaa oo yani training imaaway iyo sheekadaas ay daran ma fahamtay inta kala caadi normal waa iska celin karnaa Postecoglou waxa uu agtaaba hada shaxda uu la soo galay inaa xogaa kala jijibinay ma fahamtay daaficu ku a'uudu billahi min ash-shaytaan ar-rajiim herkasay waxa wadaa mar walba jaalle ma qaadanaysa herkow say camal tartiib isdeji ninkaan wax ka jaala badan ma jiro wallahi billahi wax ka jaala badan ma jiro wallahi Maddison markaana free kick soo qaadayaan James Maddison ninka halis oo wallahi James Maddison ka tag halis waa ninkaani maalan tahay halis waa marka oh my days waa kana waxa hada sheega waa kana Rigoro keenay Rozana waa qaatay yaa ilaahay yaqaan Rozo wuu qaadanaa ma dhaafi karmaysi Rozana ma joogi karaade Rozana haduu joogo way waa xanuunsanaa baniyo ma fahamtay daqada ugu dambeeyay wallahi Solankiino iska dhaafay ahaydniyo amse Brennan Johnson waay inuu iska dhaafay ahayd waa kana Rigorada waxa loo dhiibaa Son haduu Robinson Son Rigoro ka qabto wallahi billahi la jannuu noqon Robinson laakiin kubad isku meel xitaa meesan aadin wallahi isku meel Son maxal ordo tartiib Son maxal ordaysa caadi iska dhig
caadi iska dhigniyo waxa waaye wax ma kasoo laaban karta bis daqiiqado waa dhammaadeen daqiiqado waa dhammaadeen taageerayaasha u qeyliyooyin taageerayaasha se u qeyliyooyin Tottenham laga badiyo Premier League muwaalan tahay wallahi inaba caadi ma let's go Carabao Cup-ka hadda hore u soo gudubno oo soo dhaqaaqno ma fahantay ninkii Axmed Deeqaan waxa waaye afar isku day uu sameeyay hal gool oo dhaliyay oo macnaha afar isku day la sameeyay hal gool hal dhaliyay ninkan u shadantaa wallahi taageerayaasha ani iga daran caadi u waalanooyin Tottenham labi hal ugu badanay what Tottenham labi hal ugu badanay muwaalan taadi waali waaye let's go waa kana dhibkaana naysto Barnsley ana qabatay hal iyo wax Everton ugu garaacday waa soo badinayna moogtahay marka soo badino koox kale aan qabanayso beerkeenaga tumiyaaday sheekadii waxaa wadnaa oo Liverpool wadnaa wallahi billah Liverpool waagi 2017 waxa jirtay way soo badinay koox yar qabanayso beerkeenaga tumiyay hada fiiriya Exeter City haday 3 xal noogu badisay waa kooxda ugu dambeysay horyaalka waa kooxda ugu dambeysay kaalinta 24 ku jirta anaa naxaabad marka arkay hadda waxa bixinaa kooxda loo yaqaan AFC Wimbledon waxa waaye away aan kulankan waa kulan FA Cup oo wareeg ugu horeeyay ma fahanteen wareeg ugu horeeyay waa kana deeq kubadda laakiin banaanku mari midda kale finaandan oo Inter Miami oo egob oo macnaha pinkiga waa ku haystaa waa finaand fiican waa taariikh kale hadii finaal oo kale ay maano kale waxa waaye finaanad special ku dheerina ma fahanteen tusaale FA Cup final oo kale hada tagno kale Carabao Cup final oo kale hada tagno kale kulamada ugu dambeeyo kale horyaalka aan dheelino kale ma aragtay sida kooxaha caadiga real life oo kale waxa waaye finaanada cusub waxa ku dheelina Axmed Deeq ahay gool noo dhaliyay ninkan wallahi billahi taala player of the season no asqaata amalena yaata ani ahaanteed marka teamka aan bilaabay waxa islaam madaqana labada kun ugu horeeyay marka dheelay player of the season yaata qaadana asla laakiin meesha nin waxa soo baxay bismillah isleedahay ma weeriyahan ba mise waa qad shakiya ka galaan faad midda kale assist fiican oo markaas ka khasaariyaata kubad fiican oo ka khasaariy wallahi goosh inay gelisay aadiyaata waa khasaarisay markana waa kana Cabdiweli banaanku soo dhigay Holmes let's go my boy let's go Tony labiyeber waxa waa Gabriel Holmes asna nigan goolashiisu waa dhalina amaade saacada ku sii socona ma aragtay wala FA Cup kana meel fiican aan ka soo gaari karna Carabao Cup kana ilaa at least final ay ma karna laakiin waxa ay daran kooxo weyn inay ku soo aadaan anu waxa orda moogta sida Manchester United oo kale iyo City abo City maalinta ku aadno ama Liverpool wana dhamaatay bis wana la xasuuqa maalintaas xasuuq baan aanu yaara wallahi waa kana Holmes wuxuu u socodiyay Axmed Deeq oh my days bro Wimbledon sa ugalana maxay tahay 3 gool Kambiko 3 gool Axmed Deeq 2 gool dhali aboy wala yaabaya wallahi kubadda hadda uu leeyahay xitaa kubad oo yaani waa lagu dhignaaba daafac caadi u cariirnaaday wala ninka niyo finishana u fadhiday caadi loo cariirnaaday asoo sii dhacayo lugta bidixda ku sii tuuro wow wallahi finishana u fadhiyo wallahi billahi finishana u fadhiyo markana waa kana weerar soo qaaday waa kana Kelly wuxuu soo dhiibay Stephens inna lillahi Stephens waxa ka qaldan koox gool lagu leeyahay waxa ka cunaysa xitaa Allahu akbar adiga ku taala wallahi waxa rtun markana waa kana Deeq kubad qurux badan oo soo qaatay waa kana Axmed Deeq let's go my boy let's go afar hatrigo dhali Axmed Deeq soomaleenay hatrigo dhali موالنته هذه بسم الله والي واني كادي هاتريك brother هاتريك oh my god نقال player of the season هدو قادي وين كل هل إسورادي لكن player of the season كان وحكو حرين هورالك إنها قادنا هذه player of the year أو محالة ده يعني championship كأو قاتمان ليقون championship كأو قاتمانو والي إنه نقول سابع أفر قول إبر مركنا وكنا عبد الله wuxuu u soo celiyay kubadaas Xasan kubadaas banaanku soo dhiga doona waa kana Holmes gooshii labaad oo dhigay sidoo kale Xasan bedelo hadu ku ma assist ni number 9 ah haysto dhan kulligood maxay tahay macnaha assistiyadan goolal idin karo goolal li abin cunay assist li wadin assist maxaa bismillah midda kale waxa waaye in oo semi professional aanahna waa la fahmaa koon finaanada wadano يعني sponsor dhan ma balahan wax sponsor dhaha ma kooxaha markii yani finaanada ay wataan meesha hore yani maxaa la qaybta hore xabadka
waxa waaye sponsor xayeysiin waxbaa lagu soo qortaa soomaan xayeysiin dhanba noo lahaanba hadda fifa jeclaan lahayn inay xayeysiin noo sameyso Wimbledon saasay noogu soo dhammaatay 5 iyo waxaa ku garaacnay iyo ebera ku garaacnay waxa waaye goolasha hatrigo deeq uu dhaliyay 2 goolo maxaa la Patrick Holmes uu dhaliyay saas uu ku soo dhameysana marka bishaas December noo dhiman waxa waaye kulamada ugu badan aan dheeli doonana waxa waaye Carabao Cup-ka Chelsea hadda ku soo aadnay sheega kooxa weyn sheega waa kaas marka waxa sameeyna marka episode-kan insha Allah ta'ala inta soo dhaweeyay hada episode-ku cusub tahay ama channel-ka ku cusub tahay subscribe de yani gambalka furo video-na like noo saar comment-iga wixii fikradaada nagu soo reeb waxaad leeyahay kan iyo kiisa kale inta gaarayno bisha December gaarayno waa walaalkiin King Mali oo idin leh goodbye